tirada saraakiisha sare ee ciidanka asluubta oo maanta imtixaanka u fariistay ayaa gaarayay 59 xubnood oo isugu jira gaashaanle dhexe iyo gaashaanle sare taasi oo lagu ogaanayo heerka aqoonta saraakiisha waxaana ka timaysay kadib markii ay dawladda ku dhawaaqday in dib u habeyn ay ku samayso ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. ujeedka imtixaanka ayaa taliska ciidanka asluubta waxa uu ku sheegay in lagu hubinayo aqoonta saraakiisha sare iyo kuwa hoose ee ciidanka si kii ay wax ka dhiman yihiin dhanka khibradda loogu diro koorso ciidan oo dalka gudihiisa ama dibadiisa ah. imtixaankan ayaa ahaa qaybtii labaad ee laga qaado saraakiisha ciidanka asluubta waxaana daahfuray kusimaha taliyaha ahna taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta General Abdikariin Cali Afrax. halkan waxaan ku qaadaynay imtixaanka saraakiisha sarsare ee ciidanka asluubta maanta. daraadna waxaan qaadnay saraakiisha hoose sare marka aan leeyahay waa gaashaanle ilaa gaashaanle sare. hoose markaan leeyahay waa xidigil ilaa kabtan. imtixaankaas ujeedkiisu wuxuu yahay sare u qaadidda aqoonta ciidanka asluubta khaasatan saraakiisha. waayo waxaa la rabaa ninka sargaalka ahi inuu maxaanku yiraahdaa aqoon u leeyahay hogaaminta ciidanka uu hogaaminayo iyo shaqada uu qabanayo. sidaa daraaddeed ayaa uu ahaa imtixaanku kii wax yaqaana hore u sii soconaya waxba aqoontiisa la sii kordhin doonaa haddii ilaahay ogolaado talagalkeenu. kii aan waxba aqoonna waxba in la baro qorshuhu yahay mar kastaba in la beerdareeyo sargaalka ha sareeyo ha hooseeye lama rabo. waxaa la dhisayaa aqoonta sargaalka ciidanka asluubta macnaha imtixaanku waa sidaa. natiijada goormay heli doonaan oo nin walba loo sheegi doonaa inuu heer sare uu ka gaaray oo ka gudbay imtixaankii inuu ku dhacay. natiijada imtixaan baa la qaaday waxaanu sugaynaa haddii ilaahay ogolaado imtixaanka. hadda waxaanu aruurinay maxaanku yiraahdaa imtixaankii guddi baan u saaraynaa imtixaanka aqoon u leh imtixaanka kala saaritaankiisa buudooyinkiisa yacni maxaanku yiraahdaa guddigaasaa loo yacni saaraya isagaa imtixaanka kontroolaya isagaa natiijada markuu soo saaro maanu insha allahu u sheegi doonaa saraakiisha nin walba meesha uu ka galay. qaybta koowaad ee imtixaanka ayaa waxaa hore ugu fariistay xidigle ilaa iyo dhamme waxaana lagu kala qabtay taliska guud ee ciidanka asluubta iyo xabsiga dhexe ee Xamar. Maxamed Jawhar, warbaahinta dowlad goboleedka Soomaalida Jubbaland, Muqdisho.